sidee YouTube lacag looga sameeya ama sidee lacagta la iigu bilaabi karaa haddii aan leeyahay YouTube. dhalinyarada mashaakilka inta ugu badan haysata YouTube way leeyihiin, laakiin processkii systemkii loo marayay habka lacagta ayaa wax yar ka dhiman tahay baan filayaa. Assalaamu calaykum dhammaantiin, soo dhawaada meel walba aad joogtaan. channelka aad iga daawanaysi waa Malabadane Music, waana anoo ah Mawlid Malabadane. maanta waxaan dul istaagaynaa waxa soo badanaya dhalinyaro YouTuber ah oo YouTube samaysatay. masha Allah, wax lagu farxo in ay Soomaalidu social media iyo internetka lacagaha laga sameeyo ay soo dhex galaan. si walba ay ahaataba maanta waxaan dul istaagaynaa isla qodobka ah. muhiimadda fiidiyogan hadda hordhaca ah waxa weeyaan sidee YouTube lacag looga sameeya ama sidee lacagta la iigu bilaabi karaa haddii aan leeyahay YouTube. dhalinyarada mashaakilka inta ugu badan haysata YouTube way leeyihiin, laakiin processkii systemkii loo marayay habka lacagta ayaa wax yar ka dhiman tahay baan filayaa. haddaba dadka kale way isku faa'iideeyaan, hadday tahay Hindi, American, European, Australian. waxaad arkaysaa channel badan oo YouTube-ka sharaxaya iyo faa'iidooyinkiisa. Soomaali badan dabcan way jirtaa oo ka hadasha, laakiin Soomaalida kuma badno in ay walaalahooda u faa'iideeyaan. waxaan go'aansaday inaan u faa'iideeyo dhalinyarada Soomaaliyeed wixii aan ku dhaamo ama caqligayga yar markii aan kaashaday wixii iiga ifay YouTube-ka. YouTube baan leeyahay, lacagna kama helo, fiideo baan soo dhigaa. waxa weeye waa arrin yar oo aad komish iska yar aan fiicnin. haddii aad YouTube leedahay oo aad fiideo soo dhigto wax lacagna aanad ka helin, taa macnaheedu maaha in aanad wax faa'iido ah sameynin. try it. waad isku dayday harumar baad samaynaysaa, laakiin systemkii iyo processkii YouTube-ka unbaa kaa dhiman. taasna insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ku guuleysan doontid. dabcan fiidiyogeenan waa hordhac saan idiin soo sheegay. waxaan bilaabi doonaa fiidiyoyo aan sharaxayo bilow ilaa dhammaad faa'iidooyinka YouTube-ka. horta dabcan hadda Soomaalida way wada garanaysaa sida YouTube loo samaysto loona bilaabo, oo dee inaguma cusbo. qodobka lacagta ayaa ugu muhiimsanaa. waan wada garanaa marka ugu horeysa YouTube channel marka aad samaysanaysid googlahaaga ayaad ka dhex samaysanaysaa. YouTube ayaad upload ku samaynaysaa, upload garanaysaa fiidiyoga, kadib YouTube channel saas kugu samaysan yahay. marka ugu horeysa waxaa lagaaga baahan yahay in aad verification ku samayso YouTube-kaaga, waa ta ugu horeysa. talabaad waxa weeyaan in aad hubisid in aad verification ka tahay YouTube-ka, oo aad macnaha member ka tahay. ta kusoo xigta habka aad lacag u samayn karto waxa weeyaan waa in YouTube-kaagu au haysto 1000 subscribe. waan isla wada garanaa. talabaad waxa weeyaan in aad 4000 oo watch hour aad haysato, waa public watch hour aad haysato. ta saddexaad waxa weeyaan Allahu mustacaan in aad haysato wax aanad copyright soo upload garin contentiga, macnaha reused content wax la yiraahdo. reused content waa wax la isticmaalay ama video la soo isticmaalay
oo aadna soo qaadato soo upload garaysay kadibna aad waxaa copyright buu kuu noqonaya. waa inaad iska ilaalisid. taasna waan soo wada garanaa. qodobadan haddaba haddii ma garanaysaa ay yihiin qodobo kuu muhiim ah, youtube-ka subscribe saar, waayo waxaan bilaabaynaa barnaamijya noocaasa. hadda waxa weeyaan hordhac saan idiin sheegay. waxaanan qodob u dul istaagi doonaa oon samayn doonaa sida youtube loo bilaabo, sida youtube lacag looga sameeyo, sida stebiska la maro, sida ay u kala horeeyaan, hadday tahay verification, hadday tahay monetize, hadday tahay google adsense. google adsense waa shirkadda youtube-ka qaabilsan qeybta xayeysiisyada ee lacagta qaabilsan. marka taas ayaan isdul istaagi doonaa. dhalinyaro badan way jiraan oo ila soo xiriiray oo iweydiiyey su-aalaha, kuwaan si bareefda u caawiyey. laakiin hadda youtube channel marka aad sameysanaysid googlahaaga ayaad ka dhex sameysanaysaa. youtube ayaad upload ku sameynaysaa, upload garanaysaa videoga, kadib youtube channel saasuu kugu sameysan yahay. marka ugu horeysa waxaa lagaaga baahan yahay in aad verification ku sameyso youtube-kaaga, waa ta ugu horeysa. ta labaad waxa weeyaan in aad hubisid in aad verification ka tahay youtube-ka, oo aad macnaha member ka tahay. ta kusoo xigta habka aad lacag u sameyn karto waxa weeyaan waa in youtube-kaagu au haysto 1000 subscribe. waan isla wada garanaataa. ta labaad waxa weeyaan in aad 4000 oo watch hour aad haysato, waa public watch hour aad haysato. ta saddexaad waxa weeyaan allahu mustacaan in aad haysato wax aanad copyright soo upload garin contentiga, macnaha reused content wax la yidhaahdo. reused content waa wax la isticmaalay ama video lasoo isticmaalay oo aadna soo qaadato soo upload garaysay kadibna aad waxaa copyright buu kuu noqonaya. waa inaad iska ilaalisid. taasna waan soo wada garanaa. qodobadan haddaba haddii ma garanaysaa ay yihiin qodobo kuu muhiim ah, youtube-ka subscribe saar, waayo waxaan bilaabaynaa barnaamijya noocaasa. hadda waxa weeyaan hordhac saan idiin sheegay. waxaanan qodob u dul istaagi doonaa oon samayn doonaa sida youtube loo bilaabo, sida youtube lacag looga sameeyo, sida stebiska la maro, sida ay u kala horeeyaan, hadday tahay verification, hadday tahay monetize, hadday tahay google adsense.